waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed isbedelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo lagu soo bandhigay kaalinta dhalinyarada ee hogaaminta arrimaha deegaanka iyo cimilada. Shirweynahan oo ay ka qayb galayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda Soomaaliya, hay'adaha quseeya arrimahan iyo dhalinyaro kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Axmed Cali ayaa khudbadiisa ku xusay shaqooyinka wasaaraddu ka qabatay arrimaha dhalinyarada iyo cimilada isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda doorka dhalinyarada ee hogaaminta mustaqbalka cimilada. waxa ugu weyn oo aan ka filaynaa shirkan inuu ka soo baxo in ajendayaal iyo xalal waara oo ay dhalinyaradu hogaaminayso ee ka soo baxaan oo lagu xalinayo ama looga hortagayo ama lagu la qabsanayo isbedelka cimilada. dhibaatooyinka ay keeneen isbedelka cimiladu oo nooc walba ah oo dhan walba bulshada Soomaaliyeed taabanaya waxa u badan cidda ugu badan ay taabanayso waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo boqolkiiba 70 in ka badan ah. marka dhibaato kasta oo isbedel cimilo ay wadato cidda ay taabanayso waa dhalinyarada Soomaaliyeed weeye. cidda ay tahay in ay ka hortagto ama xalalkii looga hortagayay ay ikhtiraacdo ama miiska soo saarto waa iyaga way. sidoo kale waxaan ka filaynaa dhalinyarada inay la yimaadaan istiraatiijiyado iyo siyaasado looga qabanayo isbedelka cimilada. taa wasaaradda deegaanka waxay diyaar u tahay in ay dhalinyarada ku soo dhaweyso platformkii awoodooda waxqabad wasaaradda ah ay ku soo bandhigi lahaayeen. sidoo kale agaasimaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mudane Jamaal Cabdullaahi iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir mudane Cumar Cabdiraxmaan Macow oo ka hadlay shirweynaha ayaa si wadajir u iftiimiyeen doorka dhalinyarada ee ka hortagga iyo wax ka qabashada saameynta isbedelka cimilada. maxaa muhiim ah ka wasaaradda dhalinyaraha waxayna la tahay inay muhiim tahay inaan dhalinyarada wacyigelinta isbedelka cimilada iyo deegaanka waxa muhiim ah wacyigelinta ugu badan in lagu jiheeyo dhalinyarada maadaama ay yihiin jiilka waaraya 40 sano 30 sano 50 sano sii shaqeyn doona in la baro sidii ay wadankeenan ay saameeyeen cimilada isbedelaysa say ugu noolaan lahaayeen u badbaadin lahaayeen. marka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo saaxiibada kaleba iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxa muhiim ah in dhalinyarada lagu jiheeyo ajendahan climate-ka. annaga haddii aan nahay maamul gobolka Banaadir waxaan in badan ma taqaanaa leenahay waaxay kala gidisan oo u taagan arrimaha maareynta climate change-ga iyo ma taqaanaa deegaanka. waxaa jirto waax la yiraahdo waaxda deegaanka iyo biyaha oo agaasimadeeda hadda ay nala joogto. sidoo kale maxaa la yiraahdaa waaxaha nadaafadda iyo ma taqaanaa maareynta biyaha. guud ahaantaas maxaa la yiraahdaa waxaa ma taqaanaa marka door weyn ku leenahay sidii maxaa la yiraahdaa loo maareyn lahaa. waxaana aad ma taqaanaa isaga kaashanaa wasaaradda oo runtii maxaa la yiraahdaa roolkeeda hogaamineed dalka iyada uga mas'uul ah heer qaran. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulqaadir ayaa tilmaamay qorshaha uga aadan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo badbaadinta deegaanka. waddankeenan wuxuu ku jiraa wadamada oo vulnerable ka ah waxyaabaha oo keena isbedelka cimilada haddii ay tahay inaanan ilaalin karin xuduudaheena iyo badaheena iyo dhirteena xaalufinta ku socoto. marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu soo jeedinayaa in ay ka warhayaan adduunyada meesha u guureysay isbedelka cimilada. sidoo kale wasaaraddu waa ku faraxsanahay in ay shirkan u qabato dhalinyarada Soomaaliyeed. wasaaradda dhalinyarada way soo dhaweynaysaa wax kasta oo dhalinyarada faham iyo dhiirigelin iyo tusaaleenba u ah in ay horumarkooda ka shaqeystaan. marka mid ka dambe waxaan rajeynayaa in isla qaban doono oo flagship meeting qurux badan soo bandhigi doono waan ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay fahmaan waxyaabaha hadda dunida ka socda. muhiimadda aan leenahay waa dalka Soomaaliyeed in aan horumar ka sameeyno arrimaha isbedelka cimilada maadaama aan haysano dhul iyo Greenlands oo ku filan in aan wax badan kaga bedeli karno isbedelka cimiladeena. dhankiisa wasiirka deegaanka mudane Bashiir Goobe ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii wadi doonto joogteynta shirarka dhalinyarada ee deegaanka. waxaan sida oo wasiir Maxamed ka dhawaajiyay aanu muxuu ahaa agaasimayaasheeda guud aan farayna inay haddeer ka howlgalaan inay iyo waxaha qaabilsan ee labada wasaaradood
inay bilaabaan si shirweyne shirkan ka weyn oo Soomaaliya oo dhan iskugu timaado gudaha iyo dibad oo muxuu ahaa lagaga hadlo cimilada iyo saameynteeda iyo isbedelka muxuu ahaa iyo muxuu ahaa hawlaha ku aadan annagoo mar kale saaxiibadayada caalamiga gaar ahaan hay'adda UNICEF oo uga mahadcelinayno ay mar kale ku talagalaan in aanu shirkan shir ka weyn oo gudaha iyo dibad aan ummadda saga keenno dhalinyarada ahayd ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina intii uu socday shirku dhalinyaradu waxay soo bandhigeen doodo aragtiyo iyo fikrado ku saabsan xalinta caqabadaha deegaanka ee dalka halka mas'uuliyiintuna ay ku dhiirigelinayeen in dhalinyaradu ay hoggaanka u noqdaan dadaalada lagu ilaalinayo deegaanka iyo tacaalida isbedelka cimilada. Sumaya Cabdiqaadir, warbaahinta qaranka.